السلام عليكم سو هذا الدمانتين والله ليال وبلعبنا مردو سو هذا الدمانتين سو هذا الدمانتين مردو وبلعبنا انتو والله له إيمانيا بس إن شاء الله سو هذا الدمانتين مربو دافع دنيا كتشوكتان سو هذا الدمانتين مربو دافع دنيا كتشوكتان سيتوسا وبلعبنا برنامجك دقيقة هو يكوبنان دونان برنامج كنا نحر كيسو كوبنان دونا إن شاء الله واحد بدنا وكفائي دونتان walaalaha isla sugeynaa inta imaanayaan insha allah si barnaamijka hal mar aanu dul marno insha allah wuxuu noqon doonaa barnaamija wax badan ka faa'iidi doontaan amaar soo dhow السلام عليكم عويس وناكسن calaykum assalaam see tahay axwaashaada الحمد لله معنا نسكور ستاي alxamdulilah aad baa wanaagsanahay هذا النغص الداهد حقاير هدان صوب حي يعني باكل يسار قبصان الله إن شاء الله okay masha allah soo dhow walaal dhammaan walaalaha meel kastoo idaafaha dunida ka joogaan waan soo dhoweynaynaa barnaamijkeenu caawa wuxuu ku salaysan yahay sidee u jahayn kartaa noloshaada markuu qofku jahaynayo noloshiisa wuxuu u baahan yahay dhowr qaybood oo xeerar inuu adeegsado laakiin caawa waxaan aad u dul istaagi doonaa xeerka ugu muhiimsan ay tahay qofku tallaabada u horeysa oo laga rabo inuu qaado markuu rabo inuu jiheeyo noloshiisa marka soo dhowaada dhammaantiin mawduuceenu caawa intaas ku salaysnaan doonaa waxaa si toosa barnaamijka u wada daadihin doonaa aniga walaal amaar barnaamijku wuxuu marayaa taxanihii waxa weeye saddexaad buu marayaa si qurux badan buu ku socdaa wax badan baa rajaynaynaa ka faa'iideen wax badan oo kalena waa kasii hadli doonaa biidni illaahi kariim xataa ciwaanada idinka ay soo weydiin doonaa yani meelaha aad waxyaabaha ugu badan oo aad jeceshihiin inaan diiradda saarno amaar soo dhowow ku soo dhowow walaalaha iyo adoo la wadaagaya horudhac yar aad baan islaamaya dhammaantiin waan soo dhowahay axmed kulli saa sheegtay sababtan caawa qabanaya live-ka waxa weeyaan waa su-aalihii maalintii dhoweyd nooga yimiday oo qof walba rabay inuu ogaado kaasoon iskula garanay ilaa shalay toole aan diyaarinaynay sida ugu fudud communitygeena ku caawin karayno sida koowaad balaan u samayn karayno qorshe u dhigi karayno marka kulli barnaamijkeenu maanta laba nooc buu noqonayaa qaybta koowaad oo ustaad axmed noo daadihinayo oo noqonaysa sidee hadaf u dhigan karaysaan weyida ugu wanaagsan ee hadaf loo sameeyo isagoo nitusi doona ka isagoo isticmaalo iyo ku uu soo akhriyey istaraatiijiyo kala duwan maadaama laga yaabaa ka isaga u shaqeyno aad ku shaqeyn karin ka ugu wanaagsan ee ka faa'iideysan karaysaan ka bacdi aniga marka dambe qaadan doona oo sharaxi doona sideed go'aanka aad dhigateen hadafka aad dhigateen aad ugu adkaan karaysaan matalan sideed go'aan aad u qaadan karaysaan aanad ka laamin waxa weeyaan go'aan qaadashadu waxa weeyaan qofku markuu business galaya ama ay nooc meesha doonayso nolosha noqoto aad bay u muhiim tahay taa oo soo bandhigi doona istaraatiijiyo kala duwan daraasyo kala duwan laga yaaba mid kamid ah inay anfacdo qaababka loo qaato qaababka psychologicalka qaababka logica dhammaantood baan soo bandhigi doona ilaa meelaha 10 daqiiqo marka koowaad axmed baan kusoo dhaweynaya ustaadka oo sharaxi doona sida ugu wanaagsan ee hadaf u dhiganaysaan waxaan odhan lahaa haddii qalin bogna soo qaataan
qorataan maadaama waxaad qorato mar walba waad xasuusanaysaa waxaanad noqonaysaa qof active la oo la socda qorshahan uu soo bandhigayna waxa weeyaan laga yaabo 10 daqiiqo inuu hadda soo bandhigay isaga inay ka qaadatay boqolaal saacadood sanado badan waxa weeyaan aad ka faa'iideysataan fursadana adeegsataan aad u bedelataan si baraksisa marka aad baan kugu soo dhaweynaya Axmed u soo bandhig insha Allah qaabka hadafkaaga anigu qalinkii bugayga waan soo diyaarsaday waxa la yiraahdaa أنت بالنص هذا النقطة سنة بس هم جناح سكالة أي نوع أيضا هالنقطة مر والباء أو أرضي وحي احتداد جرنيسي قرص يعني مسكح هذا قلي الدبع أي بدل وقت كذا وجرته سنة لايف كهرب اللي وحدي أدو مين تاينا مر والبقرة عن واحد أدقي سنة سان أما المقلة سان إن كستو قرال كي وسكولاد من الناس هي حدثوا ليسو بندقي دونا لكن وحوي واحد هو نفس يقول كوجاري كريفينات waxaad maqashay ku anfacaya inaad qalin buu ku qori karayso marka ku soo dhow ustaad hadafka iyo qaabka ugu wanaagsan loo bandhigi karo insha Allah diyaar baan nahay ka dhigaysan aad ba u mahadsan tahay walaal Amaar dhammaan walaalaha waa soo dhaweynaya iyagana meel walba joogaan mawduuca kan haddii aad rabtid inaad wax badan ka faa'iidid waxaan kaa codsanayaa inaad buug iyo qalin soo qaadatid nuxurka iyo furaha khudbadan aan soo jeedin doono inaad ka qaadatid qodobada kuugu muhiimsan waan hubaa inay ku caawin doonaan sababtoo ah way caawiyeen waxaan ku siin doonaa xataa tusaalayaal cadcad sidii aniga iyo caawiyeen baan ku tusi doonaa insha Allah waxaan ka bilaabi doonaa caawa kuma soo koobi karno muuqaalkan laakiin nuxurka horudhaca iyo wixii dhan baa idiin soo koobaya waa maxay horta yool in la degsado yoolku waa waxa la dhahaa marka la qeexayo waa riyo ama himilo ku jaango'an waqti cayiman marka lagu qeexayo waxa weeye buugaagta iyo dadka qoray qeexidda guud oo la adeegsado waa taas waa wax yani himilo ama riyo ku jaango'an waqti haddaysan wixii waqti ku jaango'nayn ama xilli cayiman aysan lahayn oo la hiigsanayo ma aha kaasiyo waa iska fasaxan yahay waa wax iska furan marka yool laguma tilmaami karo waxa la dhahaa yoolku waa riyo iyo himilo ku jaango'an waqti cayiman taas way marka la qeexayo nooci doonta ha noqoto yoolkaas okay waxyaabaha ugu badan oo ka hadli doono marka maanta wuxuu noqon doonaa sidee yool loo degsadaa waan ka hadli doonaa kadibna tusaalayaasha ay siin doono kuwana horudhac u ah maxaa laga doonaya horta qofku inuu yool degsado yoolku se imise u kala baxaa yoolku waxa la dhahaa wuxuu u kala baxaa laba qaybood mid waqti fog ah oo long term in Soomaaliya isku dayna aad uga hadlo ereyada xataa waa mid yani waqti fog ah iyo mid waqti dhow ah baa loo kala saaraa marka yool la degsanayo labada marka loo kala saaray marka waxa la dhahaa kan waqtiga fog hadda day aniga buugga kan the secret way laakiin waa qaybtiisa maray kan waxa igu qoran long term kayga yoolasha aan rabay inaan hiigsado waxa aan rabo inaan hiigsado waxa way 5 sano soo socota waxa aan rabo inaan hiigsado 2 sano soo socota waxa aan rabo inaan hiigsado 3 sano soo socota wixii hal sano ka badan buugkana igu qoran yihiin aan rabo inaan hiigsado marka waa maxay long term ka yoolasha ah waa inay kugu qoran yihiin meel iyo okay muhiimsan baa la dhahaa labada qofku inuu degsado long term iyo short term waxa la dhahaa muhiimadda ugu badan iyo mudnaanta waxa la short termka sababtoo ah haddii aadan lahayn goolal joogta ah oo hadda waqti xaadirka ku salaysan kuwa long termka waxba kuma darayaan baa la dhahaa marka mad u horeyso gool yool degsanaysid waxaad diiradda saaraysaa hadda waqti xaadirkan aad joogtid kuwa yani waqtiyada dhow ah sanadkan 6 bilood soo socda 3 bilood soo socda marka kuwan ku shaqeeyaan ba adigu degsan doontaa haddii uu kugu cusub yahay xeerarka kan sida yoolka loo degsado ha ka bilaabina long term goal degsada 5 sano ku oradin waxa ka bilaabaysaa marka sanadka kan hadda aan joogo bil kaliya aan dhaaftay 12 beri sidee hadda ula qabsan kartaa sanadka kan waxaan ku siinayaa marka formulo yar oo aad kula qabsan kartid hadda oo ka gaari kartid bil iyo barka ka bil iyo 12 beri oo ka tagay aad dareemay okay waa maxay marka waxaan rabaa inaad kula wadaago horta yool markaad degsanaysid waa inaad leedahay buug aad ku qoranaysid oo gooniya yoolashaada ha isku badin ha qorin 15 yool kaliya waxa qorataa maximum 10 yool qoro oo hiigsanaysid haddaa ka sii yarin karto 5 yool kusoo koobi kartidna kaba sii fiicanba oo waaweyn kadib iyaga aad sii qodobaynaysid marka yoolasha aad rabtid inaad hiigsatid waa inaad 3 su'aalood ilaa aad ka jawaabtid yoolashaasi ma shaqeynayaan ma isweydiisay mararka qaar
sanad walba marka uu dhalanayo dadku inay faraxsan yihiin sanad cusub baa dhashay yoolal baan degsanayaa waxaasaa rabaa inaad qabto waxaasaa rabaa inaad sameeyo balse sanadku markuu dhammaado qofkaasi murugo iyo waxa weeye catow iyo ciil uu madaxa foorarsanayo waa maxay sababtu sababtoo ah qofkani yes wuu qoray yoolashii excited buu ahaa aad buu u haminayey laakiin ma uusan dhaqan gelin muusan raacin xeerar iyo foundation iyo su'aalo ay ku dhisayin marka gool la dhisaya baa jira marka kuwaasaa caawa idin baraya su'aal baa idin weydiinaya marka ma kugu dhacday sanad walba in aad degsatid yoolal balse aad yoolashaas xaqiijin sanadku markuu dhammaado haddii ay dhacday soo qor aniga way igu dhacday soo qor haddii ay kugu dhacday ma kugu dhacday sanad walba inaad degsatid yoolal badan qoratid kadibna yoolashaas ay kuu shaqayn waayaan taasaa marka caawa xalkeeda iyo sida aniga igu shaqeeyan ku bari doonaa kula wadaagi doonaa iyagoo qodobaysan soo qor aniga haddii ay kugu dhaceen maasha allah okay waxaan rajaynayaa inaad ila socotaan qaybta marka waxaan u gudogelaynaa see uga bixi kartaa marka haddii xaaladda aad ku sugan tahay waa maxay waxa kaa saari kara haddaa marxaladda aad ku sugan tahay waxa kaa saari kara waxa weye walaal kow saddexdan qaybood inaad raacda horta aan kula wadaagi doono saddexdan su-aalood inaad ka jawaabtid kow yoolkan waa maxay ujeeddada aad u qoranaysid waa inuu ujeeddo ku salaysan yahay yool kasta ood qoranaysid waa inuu leeyahay ujeeddo waa maxay ujeeddada aad yoolkan rabtid inaad hiigsatid waa sababayn doonaa ujeeddada okay waxaan dhihi karnaa kaba soo qaad tusaala soo qaadanayna waxaad rabtaa inaad culays iska dhintid baan dhihi karnaa maadaama aad rabtid inaad culays iska dhintid waa maxay ujeed waxaad tiraa jimicsi baan aadayaa 6 bilood soo socdo waxaan rabaa inaan culays iska dhimo intaas miisaan iska dhimo waa maxay waa yool aan leedahay waa maxay ujeeddada u samaynaysaa isweydiinaysaa marka ujeeddada aan waxaan u samaynayo rabo inaan culayska iskaga dhimo waa maxay the reasonkaas kadib waxaad helaysaa jawaabba u helaysaa halkaasaa ku qoraysaa ujeeddadii marka waa maxay waxaad dhahaysaa caafimaadkaygu inuu siyaado in waxa weeye aan noqdo qof waxa weeye aysan dharka u dhib ku hay yani dhinacyo waxa qoraysaa ujeeddaa qoraysaa waxa u samaynaysid waa maxay ujeeddada ka dambaysa waa inaad yani ujeeddo u samaynaysa waxaan haddii aadan waxa ujeeddo u samaynayn oo ay ku tahay iska samee ma jiro sabab kugu sii riixaysa waxa ma sii wadi doontid haddaa rabti wixii inaad sii wadi waa inay jirtaa ujeeddo qodobka waa isla fahanay waxaan u gudbaynaa marka qodobka labaadoo xiga waa maxay qodobka labaadoo xiga qodobka labaadoo xiga waxa weeye in waxa kani uu kuu jaango-an yahay in yoolka aad rabtid intaana jaango-naanta gaarin waay waa inay jirtaa baa ka hadlaya okay qodobka labaad waxa ka dhiganaa waay sababee ujeeddadii waa ka soo hadalnay sababee waa maxay sababta u samaynaysid sababtu marka waxaa la dhahaa waxa weeye dad badani marka ay niyad jabaan oo yoolkooda ay hiigsan waayaan oo isdhiibaan waxa u sababa baa la dhahaa sabab baysan lahayn way xooggan bay lahaan waxa la dhahaa strong waydaadu marka xaaladaha adag aad ku jirtid waa waxa ku caawinaya marka aad xaalad adag ku jirtid oo yoolkaaga hiigsan weyda kaba soo qaado kale jimicsi jiibka ku jirtaa subaxdii alasiida leeda waa ordaya ama jimicsi baan aadaya adoo hurda ku hayso waxa ku kaxaynaya waa waydaadii waydaadu waa maxay marka la xiriirtaa wax la xiriirtaa ujeeddadii kuu qornay waydaadu waa maxay sababta waxa u samaynaysid what's your why waa maxay sababta alasii walba u kacso waa maxay jimicsiga u aadisid sababta waxaad doonaysaa inaad waxa weye jirkaaga dhisid waxaad doonaysaa inaad dharka markaa xiriirta kugu soo baxaan waxaad doonaysaa waa maxay sawir baad haysataa sababtaasaa kugu riixaysa mar walba aad erayo negative kugu soo dhacaan alarmiga maskaxdaada ka daarmay wax noqonayaa sababtii aad waxaan u samaynaysay oo waxa kugu riixaya tusaale kale aan usoo qaadano waalidkaa baa rabtaa inaad xajka geysid oo kale waa ujeeddada u geenaysidna waaba kaba soo qaad waxaan dhahi karnaa waa waxaad rabtaa inaad waalidka ka ducaysatid kadib sabab baa jirta marka waa inay jirtaa sabab kugu cayrinaysa haddaad shaqo aadaysid oo waqti badan shaqaynaysid mar walba maxaa kugu soo dhacaya ujeeddaa kugu soo dhacaysa waa ina waxa kugu soo dhacaya waxa hooyada iyo waalidka inaad rabta inaad xajka geysid taas waa maxay marka waxa kugu riixaya sababtaadi baa haysataa waay baad haysataa waxaad rabtaa waalidka inaad shaqada ka fariisid waay baad haysataa waxaad rabtaa inaad waxa weeye caruurtaada iskool fiican aadaan shaqo adag inaad ka shaqaysid ama business curisid ama waxa weeye waay baad haysataa marka waydu waa waxa kugu riixaya I hope inaad fahanteen tusaalayaasha kala duwan oo soo qaadan kadib waxaan u tegaynaa marka stageka saddexaad oo qofka laga doonayo marka uu yool degsado inuu qodobkaasna ku baraarugsanaado waa maxay waa in uu jaago ayaan waxaas
maanta waxaad tiraahday jirkaygaa rabaa inaad dhiso ujeedadii waad haysataa sababtii waa haysataa waa inay kuu jaan go-an tahay marka waa inuu jiro sawir maskaxdaada kaaga muuqda oo dhahaysid 2022 bisha 7 25 waxaan rabaa in aan numberka noocaas dharka xirto in cabirkaygu intaa noqdo in culayska intaa la eeg aan dhimo yani specific waa inaad qeexdaa waa inaad jaangoysaa waxaas haddii yoolkaagu intaa ku dhis haddaad rabtid inaad dhaqaale ahaan yani dhaqaale samaysid waa inaad tirahdaa waxaan doonaya lacagtaas numberkeeda waa inaad sheegta intaasaan rabaa haddaad rabtid inaad shaqo heshid shaqada waa inaad sheegtaa magaceeda shaqadaasaan doonaya waxaas iyo waxaas iyo waxaas inay tahay specific yani waxa weye jango saddexdaas markaa yoolkaaga kusoo dhistid ujeedo markaa ujeedaysid markaa sababtii la timaadid waydaadii kadib markii dambe oo la timaada specific aad jangoysid waqti ku jangoysid waa in waqtigaas yani maxaad haysataa wax walba oo aad samaynaysa haddaad tiraahdo kaba soo qaad maanta waxaan rabaa inaan hebel la kulmo saacadda iyo saacadda ama heblaayo xilligaas iyo xilligaasaan waa inaan unu kulankeenu dhammaado waa maxay waa xilli jango ah waxaad haysataa ujeedada qofka ula kulmi lahayd business baa ka wada hadlaysaan wax kala ka wada hadlaysaan okay kadib maxaa haysataa sababtii ula kulmi lahayd qofkaas sababta wax laga yaabaa inuu yahay qof next level business kaaga yani waxa weeye geyn kara yani waa maxay waxa haysataa ujeeda iyo sabab wax walba oo qofku samaynaya daily u samaynaysid ama bilo u samaynaysid ama toddobaadle u samaynaysid waa inay ku dhisnaadaan saddexdaas waa inay ku dhisnaadaan ujeedo waa inay ku dhisnaadaan sabab waa inay ku dhisnaadaan waxa weeye xilli jango ah waa sababta kaa qaadaysa inaad meel sare gaartid okay intaa waxaan kasoo hadalna marka yoolka marka la degsanayo iyo foundationka waxaan dul tegaynaa marka yoolka see ku joogtaynaysaa waxaan kasoo hadalnay dad badan sanadku markuu dhasho inay yoolal badan qortaan yoolashaa badan ay qoranayaanna ma xaqiijiyaan sanadku markuu dhammaado okay buugganaa ku qorayaa yoolasha ka waran buuggan halkaasuu iska saaraya miyuu caawinaya may waa inaad marka samaysataa waxa weeye wax la dhaho inaad degsatid waxa weeye affirmation inaad qoratid yoolkaaga ku celcelisid waxaa jira macalinka iyo Bob Proctor oo kale aad baa uga bartay formuladaas wuxuu ku leeyahay qor yoolkaaga markaad qortid kadib ku celceli buu ku leeyahay maskaxdeena qaybta subconscious mind waxay wax ku qaadataa wixii lagu celceliyo markaa ku celcelisid ma oga iyada waxa lagu celcelinayo marka qaybta barday shiftiga way aqbalaysaa kadibna waxaas wuxuu soo gudbayaa waxa jirkeena waa ficil sameynaya kadibna waxa ka dhalanaya actionkiiba marka waxa ka dhalanaya result saas marka dad badan yoolasho marka aad fahantid in aad ku celceliso waxan haddaad waxa weeye wada joogto haddaad meel kale joogto inaad warqad yar ku qoratid goal setting kadibna aad joogtaysid taasina waa waxa ku caawinaya oo meel sare ku gaarsiinaya inta markaan ka soo hadalno maxaa laga doonayaa marka yoolku waa degsatay short termku waa degsatay long termku waa qoratay saddexda u sameynaysid waa sheegtay waxaan dul istaagnaa marka maxaa laga doonaya wax la dhaho inaad samaysatid weekly planner ama toddobaad walba inaad samaysatid qorshaysid aad tiraa qorshaha toddobaadkan aad doonaya waxa weeye inaan sameeyo toddobaadku wuxuu ka kooban yahay 7 maalin buu ka kooban yahay kaba soo qaad 7 maalin waxaad tiraahday 5 maalin kaba soo qaadaba isniin ilaa iyo jimce ka soo qaada 5 maalin waxaad tiraahday 7daas beri waa maxay toddobaadkaasi waxa priority ama meesha sare ii jooga saddexda wax oo igu muhiimsan waa maxay is weydiinaysaa marka waa maxay saddexda wax oo igu muhiimsan toddobaadkaas ay tahay inaad diiradda saaro kaba soo qaad toddobaadka dhan balamaa leedahay maalmo kala duwan laakiin waxa weeye toddobaadkaas waa maxay saddexda wax oo haddii aad samaysid aad noqonayso qof productive wax soo saar leh waxeerka waxa adeegsanaa marka la dhaho 8-20 waa maxay xeerkan waxa weeye 80-20 xeerkani waxa la dhahaa boqolkiiba 20 waxa aad samaysid baa waxay saameynayaan boqolkiiba 80 kale oo maanta kaba soo qaad yoolashaada hadday 10 yool ku degsayin saddex markaa ka samaysid macnaheedu saddexdaas wax u dhigmataa 7 kale marka toddobaadka dhan yoolasha ku degan waa inaad isweydiisaa marka waa maxay saddexda wax oo haddii aan diiradda saaro toddobaadkay u noqonayo 7 wax soo saar taas waa isla fahanay kadib markaa weekly plan sidaa usoo degsato toddobaadkii oo dhan waxyaabihii ku muhiimka ah aad qorshaysid waxa uu imaanaysa marka daily oo meesha ay ugu muhiimsan haddii maalintaada kaa khalkhasho oo aadan yani long termkaaga iyo short termka yoolasha ku degani ma hiigsanaysid haddii aadan joogtayn maalintaada maxaa lagaa doonaya marka maalintaada waa inaad leedahay waxa la daily planner waa maxay markaa inaad haysatid maalintii ay kuu qoran tahay 10 wax ama 7 wax oo aad rabtay habeenkii inta aadan seexan brain tracy ba aad uga hadlaa before aadan seexan habeenkii waa inaad qorataa waa maxay
toddobada wax oo aan beri aan samaynayo ama 8 wax aan beri ay tahay inaad diiradda saaro kadib waxaad sii xulataa 3 wax oo kugu muhiimsan oo maalintaada haddii aad samaysid aan noqonayso maalintaada maalin productive waa maxay wayna isweydiisaa 3 wax oo tahay inaad haddii aad samaysid maalintaadaas habeenkii markaad gurigaaga timaadid aad noqonaysid qof wax soo saar loo qanacsan kadib marka aad tigba u samaysanaysaa oo idinla soo wadaagi doonaa iyadana insha allah haddii la yidhaahdo iyo qaabka u adeegsado nidaamka way nidaamka adeegsado oo aan u adeegsado waxa weeye qaybtaba waxaan dul istaagina marka hadda qaybta ku xigta oo ah markuu habeenka guriga kusoo laabato waa isqiimeynaysaa marka wax leedahay 1 ilaa iyo 10 dhinacee taagnaa maanta su-aal ba isweydiinaysaa wax soo saarkaygu intee la ekaa haddii aad 5 ka hoosaysid marka xoogaa yani maad ahayn productive haddii laakiin 5 aad ka sarraysid waa wanaagsaneed maalintaada maalin wax soo saar lahayd haddaad 7 ilaa 8 tagtidna kaba sii fiicanba oo maalintaada maalin waxaad aad wax soo saar u leh oo aad u sarrayso waa miqyaas isku qiyaasi kartid yoolasheedan anigu adeegsado wax badanna iga caawiyo okay taa markaa ka hadalna marka waxyaabaha caawa aadka diiradda u saaran waxaa ka mid ah tan oo kale hadda aan ka hadlaynay waa kuwan jeebka igu jiraan waa yoolkaaga sida loo degsado warqadan waxa ka bartay macallinkayga Bob Proctor baa ka bartay ninkii waalidkii uu dhintay muddaa circle-kiisa ku jira waxyaabaha markuu iga caawiyo waxa ka mid wuxuu ku leeyahay bini aadamkeenu waa ilowsho badan yahay sidoo doonaha u maskax badnaa wuxuu ku leeyahay marka ku celceli ku qor yoolkaaga halkaa ku qor buu ku leeyahay ku celceli kaba soo qaad buu ku leeyahay maanta marka waxa rabtaa inaad sanadka yoolasha kugu waaweyn oo ku degan halkaa ku qor buu ku leeyahay ku celceli marka buu ku leeyahay gratitude samee yani kaba soo qaad hadda ka dhig buu ku leeyahay aad baan ugu faraxsanay aad baan ugu shukrinayaa inaa haysto lacagta intaa leeg aad baan ugu faraxsanay aad baan ugu shukrinaya yani waxa aad doonaysid yoolkaaga ah aad baan ugu faraxsanay aad baan ugu shukrinayaa inaan haysto gaarigaas noocaas iyo noocaas specific baa ka dhigaysaa waa ujeedaynaysaa sabab baana ka dhigaysaa waa maxay muxuu ku leeyahay marka maskaxdeena bini aadamka day ma taqaana baa lagu leeyahay yani qaybteena weliba subconscious marka ku celcelis maskaxda ma taqaana baa lagu leeyahay waxaan inay yihiin yani inay been yihiin iyo inay run yihiin way iska aaminaysaa qaybta subconscious mind waa meelaha ay ku jiraan maanta waxa weeye xasuusaheeni yaraanteeni programming marka waa programminaysaa sida computerka u programminaysid waa u programminaysaa marka mawduucan waxa kusoo koobana waxa weeye aad bay caawiyeen kaararkan qaybtan kale waxa igu qoran iyagana kan waa meeshii yoolasha kuwana waxa igu qoran waxa weeye affirmation aan ku celceliyo kale wax badan bay iga caawiyeen xaqiiqatan waa waxyaabaha yoolkaaga ku dhaweynaya mar walba jeebka iskaga wadata xasuusanaysid ku celcelinaysid oo wax ku hor imaanaya marka waxaan kusoo gunaanadayaa yoolka dadka degsada dadka adduunyada jooga yoolashooda 3 buu kala qaybsan qayb waxa la dhahaa waa qayb waxay ku jiraan waxa weeye iska caadiya nolol iska caadiya chief iska noolow cun cab seexo iska baashaal waa qaybta koowaad baa la dhahaa groupkaas ku jiraan haddaa groupka ka mid tahay waxay u baahan tahay sida ugu dhaqsiyaha badan inaa uga baxdid groupka labaad waa group B bay ku jiraan waa group iyagu kuwan xoogaa yar u dhow laakiin iyagu waxa weeye shaqadooda aadayaan maalintooda waa qorsheynayaan toddobaadkooda waa qorsheynayaan laakiin long term iyo short term kooda ma laha keliya maalintoodaas un bay ku salaysan tahay iyaga nolosha wax weyn kama sii doonaya intaasay ku qanacsan yihiin marka haddii aad u baahan tahay iyaga inaad wax badan inaad kasii gudubtid baa u baahan tahay ma aha meesha waxa weeye haddii aad tahay qof hamiyo waaweyn le nolosha wax badan raba inuu ka sameeyo inaad ka baxdid baa u baahan tahay waa xaggee meesha loo socdo marka meesha loo socdo waxa weeye waa group C baa loo socdaa group C waxaa ku jira typeka kan waa qaybta dadka maanta nolosha meesha u saraysa ka gaaray maxay fahmeen xeerarkan bay fahmeen yoolashooda waa maxay way u jeedeeyaan yoolashooda way sababeeyaan yoolashooda way waxa weeye jangoyaan marka kuda inaa intaa ku salaysid I hope inaa wax badan ka faa'iideen intan marka anigu maxay ahayd inaan wax badan yoolka idinka siiyo waayba marka amaar baa su-aal weydiinaya amar waaybay dad badani yoolashooda u xaqiijin waayeen waaybay dad badani xeerarkan u raaci waayeen waaybay dad badan intay degsadaan yani yoolal ay hiigsadaan ay isla markiiba isku dhiibaan oo yool kale ugu boodaan iyagoona kii kale xaqiijin waa maxay sababta ustaad kusoo dhawo أحمد ما شاء الله أنا قدام وان كافي يستي كل وحويان lecture تيلا بنوصل جدي سي أو أتكسر برات كل عدونا دراسات بدن سماسي نكون من الدليل قفل أنا كل شيء نشيء سو أحمد الله قيبتمي وحويان هذا في كل يوم بقولي أو واحد نقالوا رباب قار كميدا إن business كلام بربان قار كميدا إن واحد براسي وضع بربان شيء جو عدد كسمي وحويان كوا هدف كاس يتطلب هذا دكتور وينه go'aan qaadashada waxa weeyaan decision-ku waa shayga ugu adag
uu qofku baran karay in go'aanaad qaadato aad ku xajisnaato aad go'aankaaga xajisato waa naturkeena weeyaan 100 go'aan man qaataa waan ka dib baan uga laamo laakiin waad baranaysaa marka dambe sideed u baran karaysaa waxaa jira sistemo kala duwan oo go'aamada loo sameeyo waxaa jira intaasoo kun oo bug baa laga qoray intaasoo kun oo daraasad baa laga sameeyey haddaba waxaan soo bandhigi jiraa adu laba shay markaad go'aan qaadanayso waa inaad eegto waxaa jira laba nooc ee maskaxeena u shaqeysa waxaa jira wax logica iyo emotional logic waxa weeyaan waa wax caadiyan aan ka fikirayno inaad shayga saas qabto ayaa raba emotionalkaaguna waxa weeyaan ama adoo kacsan ama adoo faraxsan ama adoo caraysan baad go'aan qaadanaysaa ama waxaad sameynaysaa logicina waa adigoo baalkaaga sameynaysa marka waxaan dhaha go'aanka balhalkaa jooji hadafkeena markaan dhiganayno waa inaan horta labadan ku salayno waa inaan ku salayno hadafka markaan dhiganayno ma logic ba mise waa emotional maxaan u badannahay dadku waxay 90% u sameeyaan aan u noolnahay waa emotional bana matalan tusaale ahaan oo kale maanta haddii aad leedahay dar ama isticmaalin oo kale laga yaaba in guriga intaasoo dhar ku yaala inuu intaasoo adeeg aad u baahan tahay uma baahni shayyadan oo dhan laakiin waxaad u haysataa maadaama emotional baad usoo qaado qofku ma u baahan yahay markaan caqligeena eegno inuu guriga ku yaalo 10 suud adna waxaad baanta waxaad dadka cawradaada ku asturto laakiin markaad meeshii gasho waad soo iibsanaysaa waa emotional mararka qaar wax ku dhacda adigoo adeeg tagaya adeegii intaad soo iibsato waxaad ugu tala gashay wax ka badan soo iibsanayso sababtoo ah emotional baad tahay haddaba markaad hadaf dhiganayso waa inuu hadafkaagu noqdo hadaf ku saabsan maadaama 90% go'aamadan qaadana ay emotional yihiin waa inaad ku samayn karayso emotionalkaaga how kacarada maaha ka farxadda maaha waa inaad u samayn karayso hadaf ku samaynaya markaad aragto dab kugu shiday ama uu ku farxad geliya dad waxaa jira carada ku dhiirigashanaa markay arkaan hadafkoogu matalan tusaale ahaan oo kale shayga aad noqonayso markaad hadafkana dhigatay tusaale ahaan oo kale waxaad tiri businesska inaan sameeyaan rabaa lacagta inaan intaa sameeyaan rabaa halkaa inaan gaadhaan rabaa so hadafka aad dhigatay waa inuu ku farxad geliyo markaad ka aragto aad iloobayso daalkii ku hayay aad shaqada sii wadi karayso at the same time waa inaad hadafkaaga markaad qorayso laxawga qorata xanuunka lacalla haddaad hadafkaaga gaari weydo maxaa kugu dhacay noloshaad see noqonaysa haddaad ubad leedahay ubadkaaga waxay rabaan uma iibin karaysa waalidkaaga inaad caawisaad rabtid ma caawin karaysa malaha waalidkaaga qof baad u shaqaynaysaa waxyaalo aanad u dul qaadan karin oo marka aad dareento aad ka cadhoonayso which means markaad down ku jirto anad u hay interest ama book aad u hay inaad shaqayso marka aad aragto waxanay ku qabsan doonaan aad qortay emotionalka ee ka arjo waxa ku noqonaysa inaad shaqada sii wado inaad ku daydo inaad hore u sii socoto sida awgeed markaad qorayso waa inaad labadaba u qortaa ku emotional oo ku farxad gelinaya iyo ku ka cadhaysiinaya aggressive ka dhigaya si aad hawsha u sii wado andaalka u jooji why I say that sabab saa u leh waxa weeyaan ma noqonaysa marna ma dhacdo inaan logic bilaw inaan san matalan sanadka cusub oo qof walba waa excited waa diboomoyin buu jankiisa soo deynaya waxaan sameynaya business baan galaya ganacsi baan galaya ama sport baan sameynaya halkan aan gaaraya darajadan aan sameynaya meersi marka la gaaro 85% ku dhawaad ma hirgeliyaan why sababtoo go'aanku ku qaatay baa emotional inuu diboomoyin jirkiisa ku sii daawa sanadka cusub waxaan ka gaaray ama sanadkii hore ku soo qasaaray caladii baa ku jirtay ama waxa ku jirta wax cusub inuu sameeyo raba which means dadku maadaama beehadu ay wada faraxsan yihiin sanad bilan la sameynayo automatically maskaxdiinu la qabsatay inaan qorshe sameysano sanadka cusub laakiin markaad sameysanayso waa inaad labadaba ugu tala gashaa waa inaad tiraahdo okay lacalla haddaan kaa sameyn waayo maxay ku dhacay marka waxaad noqonaysaa qof maalin walba ku dhiirigashan go'aankee tusaalahaan kale go'aankaaga markaad qaadanayso waa inaad waqti ku bixisaa saad ugu fikirayso laakiin markaad go'aan qaato inaad waqti dambe aad sameyn haddii aad dib uga fikirto go'aankii aad samaysay wuu la xog badan yahay oo bilo dadka badanaa cabsi baa joojisa bilo waxaa dhac bilowdu waa halista hadafka mar go'aan haddaad qaato stop jooji akol weyn intaanad go'aanka qaadan waa inaad laba samayso ku waxa kugu dhacaya iyo the worst thing wax shayga ugu xun ee kugu dhici kara waxaa jira booggan maanta loo soo bastigareynaya la yiraahdo how to stop worrying dalka starting living dalkan wuxuu ku sheekay wuxuu ku soo qorayaa capital kamida marka aad go'aan qaadanayso capital decision leedahay waa inaad qorato serious-ka ugu adag ay kugu dhici karaya lacalla haddii go'aankan aad samayso tusaale ahaan oo kale guur inaad samaysaad rabtaa inaad gashaad rabtaa so guur haddaad samayso waxa ugu adag ku dhacay waxa waa maxay waa inaad asxaabtii joojiso waa inaad kaftankii joojiso waa inaad ciyaartii joojiso waa inaad ku fikiri karayso waqtiga mas'uuliyad baa ku saaran qof bad xilkeegii qaaday ubad baa meesha imanaya waa inaad ugu tala gashaa in shaygan uu joogsaday aad ugu laamay waa maxay kabacdi markaad taa samayso hadhaytoo dib ku laabasho male tusaale waxaa jirta wax
laba tusaale oo waxaa jira David Bates isaguna book la yiraahdo Next 5 Movies author la yiraahdo wuxuu ku qorayaa wuxuu ku soo qaadanaya go'aanka sida loo qaato Boobies Capital isaguna decision kamid ah laba wiil baa imka matalan adiga matal Ahmed iyo aniga oo isgaranayn waxaan ku yimid waxaan ku dhahay baan soo dhacay bankan soo dhacay anigii adigu isma garanayno qorshaan ku soo bandhig waxaan ku dhahay bankaas soo dhacay ma rabo imka qofna inuu baan dhaco laakiin tusaale nigu soo qaadanaya tusaale way waa sheeko qorshanaysa mawduuca tusaale ahaan nigu soo qaadanaya waxaan ku dhahay 3 milyan 4 milyan ma soo qaadana mad la galaysaa qorshii baan ku soo bandhigay okay aan in battery waan galay markaan banka saa u dhacnay baan la qabtay labadeeniba hadalkii ugu dambeysay go'aanka ku kala qaadanay waxa weeyaan waxaan ku dhahay hay sheegin ana kuma sheegay waan la kala kaxay so waad garanaysaan booliisku soo ciyaaraan waxa jira good cabis iyo bad cabis mid ka qaarkood uu ka cabsiinaya mid ka qaarkood wuxuu ka dhigaya kullu sheekadiisa inuu saaxiibka iyo kala ku soo dhaweysanayo so booliiskii baa lagu yimiday waxa ku soo hor fadhiistay booliiskii waxa ku dhahay Ahmed amar ku sheegaya sababta ku sheegayna waa sidan haddii aad isaga sheegto oo adigu sheegi waayo waxaad helaysaa free isaguna 10 sano helaya haddii aad adigu sheegto oo isaguna ku sheego 5 sano kugu dhacaysa ayaad galaysaa jeel isaguna 5 gal u galaya haddii aad adigu sheegi weydo oo isagu ku sheego adigu 10 sano jeel galaysa isaguna free buu helaya haddii aad sheegi weydo isaguna uu ku sheegi waayo labadiina waa 2 sano jeel galaysa soo marka waa inaad go'aan qaadato maad sheegaysaa oo haddaad isaga sheegto laba mid baad noqonaysaa ama inaad jeel gali weydo free noqoto ama inaad 2 sano jeel gasho okay haddii maadaama isoo ku sheeg ama inaad isaga sheegi weydo oo ugu tala gasho inaad jeel ka gasho 10 sano iyo 2 sano wajis go'aanka maxaad qaadanaysaa go'aanka markaad qaadato kan yilifta had doctor said ugu noolaan doonta tusaashaas iman karaysa waxa weyn aan ma garanaya amaar uu isoo bandhigay soo waa sheegay si aan free noqdo maybe inuu sheegi waayo anina ku sheegi waayo laga dhici karta ka bacdi aad free noqotaan 10 sano soo dhamayso so 10 sano markan ka soo baxay seed noqonaysa ayu habida so marka wadada ku arko seed noqonaysa keer ma sameynaysid misabaalkaaga so go'aankaas oo kale markaad position saas isgiiso waxaad noqonaysaa ma ku faraxsantahay go'aankaaga ma ka go'an tahay marka any decision aad qaadanayso waa inaad warsa serious samayn karayso ka bacdi inaad dib ugu laamin tan waa dhamaad hore u sii soco waxyaabada soo celceliyana waa taas weeyaan go'aanada ugu fudud waxaad ku bilaabi karaysiistaas haddaad ganacsi galaysaan kulli intii noogu badan laga yaabaa inaad ganacsi ku jirtaan word of business-ka waxa weeyaan waa inaad qaadan karayso decision-ka 1 second wax ka badan wax ka yar 2-3 daqiiqo hadduu qofka second wax ka yar go'aan ku qaadanayso inuu go'aan qaato wuxuu u baahan yahay training badan waa in go'aanka markaad qaato aad negative aad sii dhaqaaji karayso in markaad samayso go'aan dib aad ugu laameen uu dhacay ma soo laamin sababtoo ah wixii waa baas u tag can you leave that intaad go'aanka qaadan ka fikir ka bacdi weynaa samayso si uu tirin garan karaysa maskaxdaada subaxdii markaad kacayso matalan saacadaad ku kacaysa waxyaalaad ku bilaabi karayso step by step go'aan weyn maanta kuma qaado kuma oranayo waxa heerka samee way iman doontaa waqtigeeda laakiin inaad baraasta garayso waa meel hoose ku bilaabi karayso kale nolosha caadiga daily-ga inaad maalintii samayso okay 3 go'aan inaad samaystaan raba tusaale ahaan oo kale waxaad samaynaysaa sariirta markaad kacayso waxaad ku buuxisay 6 subaxnimo inaad kaco 6 subaxnimo 2 go'aan mid baad dooranaysaa ma sii saxnaysaa mise waad kacaysaa ma qof go'aankiisa ku adag baad tahay mise qof ku adag waa tusaale aad maanta sabiri samayn karayso kale ka bacdi waxaad samayn inaad suuq wax ka cunto laga yaaba suuqa tagtay maqaaxi kaafiye waxa ku yaala bun waa inaad go'aan qaadan karayso tijaabi ilaa usbuuc inaad 3 second gudahood go'aan qaadanayso ka bacdi inaad ka welwel hadda carwada soo dhar iibsanaysid dhinac walba ku tijaabin kartaa dhinaca tusaale ahaan samee maskaxdaada bar sida aad u samayn karayso go'aan biso aad ku laamay falan kaafiye shax min doorta rabe kaafiye خلاص maskaxdaada inay ku soo laamin inaad shax rabtay way dhamaad waxa samaynayso wadadii baa kaagu kacay ka bacdi markaad la qabsato waxyaalada yar hadhow tolo go'aanada waaweyn waxaad noqonaysaa qof ay saameyn ku yeelanay emotionalkiisina control kulley inaan hadalkan lagu dheereeyo ma rabo hal arrin baa raba inaan kugu soo celiyo intaada ka bixin ama hal su'aal kaliya sheekadii hadda ka soo sheekaysay ee labadii nin waay buu ballan bay ku kala tageen waxay ku kala tageen qofna inuusan qofka kala sheegin waa maxay sababta ka dambaysay inuu qofkaasi sheego ama sababta ku kaliftay ama ku dabaqi karta xataa dad badan sababta ay yoolashooda iyagoona isku bedbedelaan oo kale adoo halka dhinaca ka istaag
exactly tusaalaha lagu soo qaatay waxa weeyaan kolley waxaan u daynayna qof walba logic ma sharaxay xataa autorku laakiin waa inaad situationka laguda ku kala jiraan way kala duwan yihiin laga yaaba qof inuu xiriir ku jiro xiriirka inuu ka baxa raba in laga yaaba qof inuu go-aan qaato rabo uu galo kolley go-aanka aday kugu xiran tahay qofkan aad ballanta la gashay ama waxa naftaada aad la gashay wax kaga baxaysaa iminka kamay dignayn ani axmedka waxaan dhacaynay maxay ahayd bangi waxa naftaada shii la gashay ballan oo tiri shayga inaad sameeyaan rabaa shaygii baa ku hirgeli waaya so ma isdhiibaysaa mise hore usii wadaysaa wejmeysto macnaa any sheekada waxaad ku dabiqi karaysaa mar walba noloshaada ah situationkaad joogtay go-aankii hore la gashay alqaadu marka ku yimaad ma isdhiibaysaa mise waad samayn mise waad isdhiibi karaysaa so waxa weyan waa psychology waxa weyan waa philosophical qofku uu nolosha uu ku nool yahay ku dabiqi karayo in uu sameeyo go-aanka siduu qaadanay aad bay u muhiim tahay insha allah waxaan isku dayi doonaa xataa inaan fiidiyada haddii soo badino istaraatiijiyo kala duwan ama bogyo oo tuuro kala badan oo steebyo ku sameynaya sida habiidka loo bedeli karayo waxyaala badan baan soo wadnaa aniyo ustaadku insha allah aan rabno community inaan korno in aynu maskaxda iska dhisno inaynu business sameyno inaynu keliya business sameyn laakiin nolosha caadiga waxa weeyaan any branch waxa weeyaan qofku wuxuu u baahan yahay inuu kor uga dhiso nolosha waagii hore qofka geesiga waxa lagu tilmaami jiray qofka tolkii u dagaalamay ee dagaalka gala maanta waqti xadirkii uu dhamaaday dagaalkii cid dagaalaysa ma jiro wadan la leeyahay ma jiro garanaysa maanta adigoo Yurub joogaad Britain Africa shaqaysanaysa qof Afrikaan Yurub macna adduunku wuxuu noqday meel la kala lagu wada nool so wadarkiisa xataa teknolojiyada sameynayso adoo Africa jooga laga yaabo inaad Yurub dhexdeeda xataa business ku kala wado laakiin waxa ugu adag maanta xadirka lagu nool yahay waxa weeyaan sidaan inaku isku control lahayn emotionalkiga u sameyn lahayn as discipline u noqon kara lahayn iyo sidii aan noqon lahayn dad maskaxiyan ka dhisan oo isku duuban insha Allah waxaan tayadeeda waan la qaybtami doonaa inaan naga anfici doono anakana kaliya maaha inaan naga cilmi badanahay laakiin markaan ni sharaxayo kama dhigna aniga perfect aniga daftayga soo kale boqol qalad oo sameeyay baa jira kumanaan qalad go'aano aan qaatay ka soo laamista same sino kalena like waan sameeyaa laakiin mid waxa waa inaad tahay continue waa inaad step sii socon karayso inaad sii socon karayso inaad istaagi kari baro sii soco qor maskaxaad haddii aad qofkaan noqoto baalka aad samaynayso ta kale nagula talinayna waxa weeyaan in aad yeelato qof aad la tashan karayso kale mentor service aad buu u muhiim yahay sababtan mentorka uu leeyahay ama business ama baalka noqdo qofkaad u tegaysa waa inuu noqdo qof meesha ku sii jiro waxaan garanay tusaalahaan oo kale ka soo qaado haddii aad rabto inaad guursato ood wiil single u tagto tiraada inaan guursan rabaa talada ku siinay waxa weeyaan single kale joog to laakiin qofka u tagaysa waa inuu qof meesha gaarsiisan waa inuu qofkan meesha u socda ama ma hadafkan u socda oo wada jir u qaadi karaysaan qofkaad la tashan karayso inuu saan noqdo markaad go'aanada qaadanayso markaad hadafka dhiganayso inaad kaasoo kale ku xidhnaataan kana wuxuu kuu sameynaya inaad legacy level aad kor u qaado marka kule intaas ay ahayd aniga axmed ku soo dhaweynaya wax ku tarsan aad baa u mahadsantahay walaal amaar mawduuca waqtigiisa intaas ku soo gunaanadaynaa hal wax baa idinkaga tegi doonaa noqo qof iscusboonaysiiya mar kasta wax cusub barta noqo mar walbana arday ha isbedelin haddaa yoolal degsadinna sidii cimilada ha isbedelin ku dheg yoolashaada sidii aad u xaqiijin lahayd hadday wax aad aragtid inaad hiigsan weydinna waddadaa u maraysa yacni iyo qaabka xeeladda adeegsanaysa wax ka khaldan yihiin laakiin xeerarkan hadday aad raacdaa caawa kula wadaagay walaalna waxa weeye aad isaguna dhinac kale uga istaagay waan hubaa inaad meel fog ka gaari doontid yoolashaada waa taxnayaal bay noqon doonaa barnaamijyadan guul baan idiin rajaynayaa isku day inaad kortid mar walba isku day inaad si joogtaa u kortid iscusboonaysiisid wax cusub baratid hadday noqoto dhinac walba taasna waxaa ku baran kartaa inaad maskaxdaadu furan tahay dadka la sheekaysan kartid su'aalo weydiin kartid mar walbana inaad koraysid korriimo dhinac walbaa kugu socoto waa mahadsantiin walaalayaal guul baan idiin rajaynayaa waan idiin waxa weeye kaydinaynaa lifeka kan dib baa ka daawan doontaan amaar aad baa u mahadsan tahay sida quruxda dhammaan walaalahaas soo xaadirin aad baa uga mahad celinaynaa guuleysta walaalayaal dhammaantiin allah idin sharfo thank you اسالك طبعا السلام عليكم.